agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Cumar Sayid oo maanta shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cali Axmed Jaamac Jangari oo sheegay in maamulka hawada lagu soo wareejinayo dowladda federaalka ee Soomaaliya waa ayaan daro wasiir Cali Jaamac Jangari inuu maanta iraahdo waxana lagu wareejinayaa hawadii dalkii Soomaaliya la isku oran jiray iyadoo bishii January aynu dhaafnay lagu qabtay dalka Hindiya shirkaas oo lagu soo jeediyay in hawadii dalkii Soomaaliya la oran jiray loo qaybiyo 4 dal Hindiya Seychelles Ethiopia iyo Kenya in loo kala qaybiyo kadib markii wada hadalada ay guuleysan waayeen annagu ka Soomaaliland ahaan dunidana waanu tusnay iyagana waa soo bandhignay in naga dhab ahayd in hawadii labada dawladood lala soo wareego laga faa'iideysto laga madax banaaneeyo siyaasadda laakiin nasiib darro waxay ka socon weyday dawladda sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada waxa uu xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh uu ku eedeeyay inay ka baxday isla markaana majar habaabisay wada hadaladii dhinaca maamulka hawada ee ka dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadalkii ugu dambeeyay ee Istanbul 3 in dawladda Somaliland ay soo dhigtay 3 qodob oo ku saabsan qaabkii loo wadaagi lahaa hawada iyadoo walaal la yahay loogana wada faa'iideysan lahaa 3 qodob hay'adda ECAO dhamaantood waxay tiri waa qodobo macquula dawladda Turkina way uga markhaati furtay qodobadaas waxay haayeen in xarunta ugu weyn laga maamulo hawada dalkii Soomaaliya loo jiray Hargeysa laga dhigo isla markaana la sameeyo guddi farsamo oo wada jira oo labada dawladood ay heshiis ku yihiin qodobka labaadna wuxuu ahaa in la sameeyo 2 xarumood oo tameenkii Hargeysa noqoto talabaad ee supplementary in Muqdisho laga dhigo isla markaana guddi farsamo ay maamulaan qodobka saddexaad ee Soomaaliland soo jeedisay wuxuu ahaa in loo kala qaybiyo labada dal hawadooda oo qolo walba cid la kaashanaysa sida uu maamuleysaba ay u maamusho waxa soo wada hadala iyo qodoba waxa runtii ay ka socon waayeen dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ugu baaqay in aanu qaadin wadadii madaxweynihii ka horeeyay uu qaaday waxaan halkan ugu baaqayaa sidoo kale dawladda la doortay mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo anagoo rajaynaa insha Allah inuu ku guuleysto xilka iyo ummadda dhibaataysan inuu dhibta ka saaro waxaan u sheegaynaa in aanu qaadin talaabadii iyo wadadii uu maray dawladdii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud oo gacan bidixaysay oo run ka sheegin mowduuca iyo xaaladda ay ku sugan tahay hawadii dalka Soomaaliya waxaan jecelahay in wada hadal kasta oo labada dawladood ay galaan ay furo u noqoto in laga heshiiyo hawada taasoo sababi karta hadii laga heshiiyo isu soo dhawaansho sababi karta in mustaqbalka labada dawladood wada hadalkooda ay ku guuleystaan Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic SAB TV Hargeysa